gordhow qof isku soo xiray babooyinka qarxa ayaa halkan oo ah meel aan ka fogeyn isgooska daljirka Dahsoon isla markaana ka tirsan degmada Boondheere waxa uu ku bartilmaameedsaday gaari ay saarnaayeen agaasimaha Radio Muqdisho Cabdicasiis Afrika iyo sidoo kale agaasimaha telefishinka qaranka Sharmaarke iyo qof saddexaad oo la socday kadib markii ay ka soo baxeen maqaaxi halkan aan ka fogeyn dad goob joogayaal oo alla hadalay waxa ay noo sheegeen in halkan uu ka soo baxay gaariga ay saarnaayeen agaasimaha telefishinka qaranka iyo sidoo kale agaasimaha Radio Muqdisho iyo qofka saddexaad oo la socday halkan ay ka soo baxeen markay halkan ka soo baxeen kadibna waxa naloo xaqiijiyay iyagoo halkan maraya in qofkii ku xirnaa babooyinka uu gaariga qabsaday isla markaana sidaas uu ku qarxay waxa la xaqiijiyay in uu geeriyooday Allah u naxariistay agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicasiis Afrika iyo sidoo kale waxa uu dhaawac halis ah soo gaaray agaasimaha telefishinka qaranka Sharmaarke qof goob jooga oo la hadalay gordhow ayaa nooga warbixiyay sida ay halkan wax uga dhaceen waxaan goob joog ahaa ama dhacdadii naxdinta lahayd ee halkan ka dhacday hotel makhaayaddan oo lagu caweeyo oo dhalinyar ahaan ku caweynaynay isla waqtigaasina aan ku casheynay ayaa waxa hal mar isbedelay jawiga iyadoo mataqaanay waqtigaasi uu nala joogay oo dhalinyar wariyaal uu Cabdicasiis Allah u naxariista kamid ahaa baabuurkiisuna guduhu ku jiray isla markii waxa dhacday in gaarigii isagoo aan goobta ku wada casheynayno inuu soo baxay oo gaarigiisa kaliya hotelka ku jiray markii uu naga soo baxay makhaayadda ayaa isla markiiba waxa isbedelay jawiga dhamaantay dhulkaan ku daadanay isla daqiiqad ka bacdi markii aan banaanka u soo baxnayna waxaan aragnay xaqiiqatan wax laga naxo oo ah baabuurkii gudaha nagula jiray in uu mataqaanay halkaas uu ku qarxay ilaa iyo hadda sida shacabku ay noo sheegeen oo dadkii markaan anagu meesha aan u soo baxnay ma noo cadeeynin waayo qarax wuxuu ka dhacay banaanka anaguna gudaha ku jirnay waxna loo sheegay inuu qof dhibaatadaas geystay laakiin mataqaanaa xaqiiqatan wax ka dhalinyar ahaan aad calooshayada noo xanuuntay weeyaan aad baan uga xunnahay Allah u naxariisto basaarinta laga aragtay dhimashay dhaawac wallahi walaalkayow runtii anigu waan argagaxnay anagoo dhalinyaran meesha ku casheynay naxdintii iyo shoorkiina qabsaday waan kala yaacnay telefoonadii meel baan kaga tagnay meeshii aan ku casheynay indhahaygu kaliya waxay qabaneen markii aan soo baxay marxuum Cabdicasiis iyo nin kale oo la socdo Abwaan Barrow lagu sheegay labadan nin baa mataqaanay dhaawac ahaan lagu qaaday markii dambana Allah u naxariisto miidiyahan ka arkay isagoo Cabdicasiis loo taxseenayo aad baan uga xumahay Allah u naxariisto aad baan uga xunahay haddaan dhalinyar ahaanahay salaam tan iyo bishii Febraayo kadib markii uu dalka galay qalalaaso waxa kordhay weerarada ismiidaaminta ah ee adeegsanayaan kooxda Al-Shabaab Maxamed Ibrahim Bulbul Universal TV Muqdisho laba saac iyo qadar daqiiqada ayaa qarax xoogan oo joogtiisa inta badan laga maqlay degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa wuxuu ka dhacay afaafka hore maqaayadan City oo ah maqaayad lagu caweeyo waxaana la sheegay in si gaar ah loo bartilmaameystay Allah u naxariistay Cabdicasiis Afrika agaasimihii Radio Muqdisho oo markaasi gaarigiisa halkan ka soo baxayay waxaana la sheegay in qof markaasi isku qarxiyay iyadoona jugta qaraxa markii halkan laga wada maqlay guud ahaanba ay ciidamada ammaanka ay soo wada gaareen waxaana guud ahaanba halkan ay ahayd mid mar qura mashaqadu ay isbedeshay haddaba khayre Axmed Jaamac oo ka mid ahaa dadkii daqiiqado ka hor la casheynayay Allah u naxariistay Cabdicasiis Afrika agaasimihii Radio Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka iyo jawiga sida uu ahaa ka hor qaraxa inta uusan dhicin waxaana sidoo kale uu sheegay in qaraxa lala beegsada gaariga Cabdicasiis Afrika oo markaasi ay la saarnaayeen wariyaal kale waxaan goob joog ahaa ama dhacdadii naxdinta lahayd ee halkan ka dhacday hotel makhaayaddan oo lagu caweeyo oo dhalinyar ahaan ku caweynaynay isla waqtigaasina aan ku casheynay ayaa waxa hal mar isbedelay jawiga iyadoo mataqaanay waqtigaasi uu nala joogay oo dhalinyar wariyaal uu Cabdicasiis Allah u naxariista kamid ahaa baabuurkiisuna guduhu ku jiray isla markii waxa dhacday in gaarigii isagoo aan goobta ku wada casheynayno inuu soo baxay oo gaarigiisa kaliya hotelka ku jiray markii uu naga soo baxay makhaayadda ayaa isla markiiba waxa isbedelay jawiga dhamaantay dhulkaan ku daadanay isla daqiiqad ka bacdi markii aan banaanka u soo baxnayna waxaan aragnay xaqiiqatan wax laga naxo oo ah baabuurkii gudaha nagula jiray in uu mataqaanay halkaas uu ku qarxay ilaa iyo hadda sida shacabku ay noo sheegeen oo dadkii markaan anagu meesha
meesha aan u soo baxnay mana cadeynin waayo qarax wuxuu ka dhacay banaanka anaguna gudaha ku jirnay waxna loo sheegay inuu qof dhibaatadaas geystay laakiin mataqaanaa xaqiiqatan wax ka dhalinyar ahaan aad caloosha iyada noo xanuuntay weeyaan aad baan uga xunnahay allah u naxariisto wallaahi walaalkayow runtii anigu waan argagaxnay anagoo dhalinyaraan meesha ku casheynaynay naxdintii iyo shoorkiina qabsaday waan kala yaacnay telefoonadii meel baan kaga tegnay meeshii aan ku casheynaynay indhahaygu keliya waxay qabanayn markii aan soo baxay marxuum cabdicasiis iyo nin kale oo la socdo abwaan barrow lagu sheegay labadan nin baa mataqaanaa dhaawac ahaan lagu qaaday markii dambana allah u naxariisto miidiyahan ka arkay isagoo cabdicasiis loo tacsiyeynayo aad baan uga xumahay allah u naxariisto aad baan uga xunahay haddaan dhalinyar ahaan nahay inkastoo geerida cabdicasiis afrika marka laga soo tago ragga kale ee dhallinyarada ee wariyaasha ay gaariga la saarnaa ay yihiin kuwa markaasi dhaawacooda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaallada magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ayaa guud ahaanba halkan soo buux dhaafiyey iyadoona markaasi baaritaano dheeriya ay ka wadeen muqdisho ayaa inta badan maalmahan ka yaraanaya qaraxyada sida tooska ah loogu beegsada shakhsiyaadka iyo qaraxyada baabuurta loo adeegsado waxaana muddooyinkan dambe ahayd mid ayaamahani laga raysanayey qaraxan ayaa ahaa qarax ka duwan qaraxyada kale magaalada muqdisho maadaama uu ku baxay wariye si aad ah looga yaqaanay gudaha magaalada muqdisho cabdulaahi faarax nuur yiriso wararka telefishinka Soomaali Cable TV magaalada